Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa 4 xirfadood oo muhiim ah oo kaa caawinaya inaad si fudud ula qabsato isbeddelka nolosha. Isbeddelku waa qayb ka mid ah nolosha, waana inaan baranaa sida ugu habboon ee aan ula macaamili karno isbeddelkaas. Aan bilowno. Xirfadda koowaad waa la qabsasho. Tani waxay ka dhigan tahay inaad diyaar u tahay inaad beddesho fikirkaaga iyo habkaaga marka ay xaaladdu isbeddesho. Iska ilaali inaad iska caabiso wax cusub. Xirfadda labaad waa xallinta dhibaatooyinka. Isbeddelku mararka qaar wuxuu keenaa caqabado, laakiin haddii aad barato sida loo xalliyo dhibaatooyinka, si sahlan ayaad uga gudbi kartaa. Xirfadda saddexaad waa adkaysi dareen. Waa inaad barato sidaad u xakameyn karto niyadaada, aadna u deganaato oo aad uga hortagto walbahaarka marka ay waxyaalo cusub iyo isbeddelo yimaadaan. Ugu dambayn, barashada joogtada ah waa muhiim. Dunida maanta waa mid isbeddelaysa, marka baro xirfado cusub aqoon kororsi si aad ula jaanqaaddo isbeddelka. Xirfadahan ayaa kaa caawinaya inaad noqoto qof firfircoon oo si fiican ula qabsan kara isbeddel kasta. Mahadsanid daawashadaada. Ha ilaawin inaad like, subscribe iyo share sameyso. Ilaa iyo kulan dambe. Waa anigoo Yuusuf Show. Wassalaamu calaykum.